maanta waxaynu ka hadlaynaa how to make sentences sidii jumlad loo sameeyo. I love this. waxaynu ku bilaabaynaa erayga what do you do maxaa samaysaa. what do you do maxaa samaysaa. what do you eat maxaa cuntaa. what do you eat maxaa cuntaa. what do you drink maxaa cabtaa. what do you drink maxaa cabtaa. what do you play maxaad ciyaartaa. what do you play maxaad ciyaartaa. what do you learn maxaad barataa. what do you learn maxaad barataa. erayada ugu dambeeya do waa samayn, eat waa cunid, drink cabid, play ciyaarid, learn barasho mar kalo. do waa samayn, eat cunid, drink cabid, play ciyaarid, learn barasho. what oo maxaa lagu daray caawiyaha oo duha, lagu daray you oo adiga, lagu daray do oo samayna. meesha waxaa ka soo baxay what do you do maxaad samaysaa. what do you do maxaad samaysaa. sidoo kale ingiriis waxaa ku kooban yahay 12 teesi. 12kaas tees haddii aad fahanto ingiriisku aad fahmaysaa. waxaana bahanaa koorsooyin. haddii aad doonayso waa nala soo xiriiri kartaa. si toos ayaan u dhignaa ardayda. sidoo kale waxaynu ku dhisaynaa jumlado kale aanu adeegsanaynaa eradan idin muuqda. ay aniga, wii annaga, iyo adiga masaarinka, iyaga, shi ayada, iyo asiga, it ayada, ama asigu xayawaana. what do I do maxaan sameeyaa. what do I do maxaan sameeyaa. what do we do maxaan sameynaa. what do we do maxaan sameynaa. what do you learn maxaad barataa. what do you learn maxaad barataa. what do they play maxay ciyaaraan. what do they play maxay ciyaaraan. what does she cook maxay karisaa. what does she cook maxay karisaa. what does he do maxuu sameeyaa. what does he do maxuu sameeyaa. what does it eat maxay cuntaa. what does it eat maxay cuntaa. waad ku mahadsan tahay daawashada. fadlan subscribe tahaniga looban mahadsanid.